maamulka dawladda hoose degmada Boorama oo horkacaya gudoomiyaha degmada Boorama Saleebaan Xasan Xadi xogayaha dawladda hoose iyo laamaha amniga ayaa maanta howlgallo wadabanayn ka bilaabay gudaha magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. Wadabanaantani ayaa waxaa laga bilaabay kadib markii ay dariiqa soo galeen meheradaha ku hor yaala dariiqa. ugu horeyn waxaa ka warbixiyay howlgaladan ay fulinayaan dawladda hoose degmada Boorama maayirka dawladda hoose Saleebaan Xasan Xadi waxaana uu tilmaamay kan maanta sida idin muuqata wado main u ah halbowlaha magaalada Boorama caasimadda waa wadadii isku xidhaysay jaamacadda iyo magaalada Boorama way kala go'naaydo waa ogeydeen tanun ma aha 100 wado oo saaw kala go'an baa jira dadweynaha halka maanta aan joogno degan ee leh ee beerleyda waa mahadnaqaynaa sida ay noola shaqeeyeen ay u ajiibeen awaamirta dawladda iyo wanaaga dadku waa isku jiraano kulay kuwa ku xagxagta waay meesid maanta hawlgalka wadnaa kan wadooyinka magaalada lagu saarayo maaha banaanka intii gudaha aan ku mashquulsanayn ee barande duminayna ama kabarjaa duminaynay waxa soo xidhmay wadooyinkii magaalada ka bixi lahaa ee hadhow magaalo meel dhulka u fidi lahayd labada hawlood baan isgarab wadnaa maanta magaalada gudaheegana hawlgal baa laga wadaa xogayihii iyo meerku xogeenkii iyo waxa wada shaqaalihii intayadii kana xagana soo baxnay hawshaas waa hawl laga midaysan yahay ballantii aan qaadnayna waa fulinaa dhaawac kasta nagu soo gaadho waxaan nahay dadkii beerahan ka mas'uulka ahaa maamulka wanaagsan iyo wixii danta guud wanaajinaysana diyaar baan u nahay quruxda magaaladu annakay noo sharaf tahay annakay noo shaqaynayaan golaha deegaanku iyo ummadda iyo qarankaba waxa loogu shaqaynayaa wixii ummadda u dana waanu diyaar baan la nahay wata beertii iyo dhulka iyo wadada intaan leegaan bixinayno waxaanu kaga shaqaynaynaa mujtamaca inaan qaybtayada ka qaadanno inay dadkuna sidaas leeg ugu daydaan danta guud wixii uu noo dana farxad weyn noo ah wadadan ku fadhiyo bridge-ka dooxa qoorgaabeed oo ah halbowlaha yani magaalada halbowlaha magaalada dadweynahana waxaanu aad iyo aad ugu bogaadinaynaa gacanta fiican ee ayna siiyeen sida fiican ee ay wax noola qabteen sida fiican ee ay noola garteen inay u baahan tahay wadadani Boorama inay u baahan tahay bridge-kan inuu u baahan yahay Boorama si wanaagsan noola garteen waayo meelaha qaarkood waxaanu kala kulannaa waa Jiftaax Maxamed Barkhad Som News magaalada Boorama.